السلام عليكم. qur'aanka oo lagu jeesjeeso micnaha istihzaa lagu sameeyo wax cusub maaha. In badan ayaad maqashay qur'aanka ayaa sidan iyo sidan iyo sidan la sameeyey. Aamina Sharqi waa gabadh bloggerad ah kuna dhalatay dalka Tunis. Waxay si jees ah suuratu qaaf ugu bedeshay lafdi ahaan suuratu corona. Subxaanallah. Waa gabadh 16 jir ah kuna nool Tunisia. Waramo badan ayay dhalisay social media dhexdeeda markay faafisay lagu magacaabo Aamina Sharqi suuratu corona wax aan la aaminin waxa aad maqlaysid laakiin sidaan hore kugu soo sheegay cusub maaha waa wax hore u soo jiri jiray laakiin kama hadlayno wixii hore waxaan ka hadlaynaa maanta mar laga wareysanayay sababta ay u sameysay suuratu corona waxay ku jawaabtay wax weyn maaha waayo xaq ayaan u leeyahay in aan waxaan doono iyo sidaan doono soo bandhigo xogihii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah maadaama ay sameysay waxa lagu magacaabo diinta koor waxaana lagu ganaaxay lacag gaaraysa 2,000 oo diinaar. Aashu waxay tahay ku filan tahay naagta kalaamullah meel kaga dhacday qaabta ah 6 bilood xadhig ah iyo 2,000 oo diinaar. Waxaan meesha ka maqnayn hooyadeed oo leh waxay inantaydu sameysay wax qaldan maaha ila daab نجم تخدم بنت ما عادش نجم تمشي في الشارع اما هذا من كل شيء اخر تهديد قالوا لها لما نمشيو نرميو في البحر ونذبحوك كل علوش ما راوش فضلا ka xanaaqday waxay sameysay gabadhaas ugu magacaaba Aamina Sharqi fiidiyogan dislike saar waa wax kaliya sameyn karto muuqaalka maanta intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.